السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته habeen wanaagsan jaalayaal idil ahaantiin meel walba aad joogtaan waxaan idin leeyahay isku soo noqod wanaagsan kusoo dhawaada muuqaal cusub halka aad inaga daawanaysaan waa Gradisa Tube fadlan haddii ay tahay markaad kugu horeysay channelkan Gradisa Tube oo soo booqato fadlan subscribe saar channelka like share iyo comment-gana dhiirigelin bay noo tahay oo niyadda noogu dhisaysid mahadsanid عيني واوا ايدي واوا يخرب يحسوا فيا بدي حواوا الله عيني واوا ايدي واوا يخرب يحسوا فيا بدي حواوا الله بطلب شي ما بتجيبولي لا تقولوا دلوعة حقي جد كبير بيقح كتير جبتوا له هديات كتير عيني واوا ايدي واوا يخرب يحسوا فيا بدي حواوا الله waayahay caawa waxaan idinkugu talagalay maadaama habeen ay tahay asxaabta ku xiran channelkan Gradisa Tube 10 xigmadood oo muhiim u ah naftaada waa 10 xigmadood ama 10 waano aan dhaxan xitaaye oo muhiim u ah nafsadaada ama ruuxdaada haddaba waanada koowaad lacagtaada ha ku faanin adigoo la jooga qof sabool ah ama jeemaran wow lacagta ilaahay uu ku siiyey ha ku faanin adigoo misna haddana la jooga qof sabool ah ama qof jeebkiisu maran yahay ee maanta aan waxba haysan labo caafimaadkaaga ha ka hadlin adigoo la jooga qof buka qof baa sariir saaran wuu aadaarayaa caafimaadkaaga ha ka sheekayn ha ka hadlin anigu waan fiyoobahay anigu sidaan ahay ha isku horan u duceey inuu ilaahay caafiyo saddex cuntada aad cunto iyo dharagtaada ha ka hadlin adigoo la jooga qof gaajaysan yaa salaam qof gaajo maanta ee hayso haddaad istakiinka adigoo la baxaaya ee dharagtaada iyo caloosha salaxanaya daacanaya aad ka soo horbaxdo oo aad haddana kaga sheekayso dharagtaada waa falxumo soo marka ha samaynin oo ha kaga sheekaynin dharagtaada qof gaajaysan adigoo la jooga afar farxadda guurkaaga ha ka hadlin adigoo la jooga qof la soo furay ama guri burburay maskiin la soo furay ee reerkii iyo ninkii ay soo kala dhammaadeen haddii aad guurkaaga iyo farxaddaada tamashlayntaada kaga sheekayso ama guri burburay ee waqti kaa hore burburay ama waqti dhow burburay haddii gurigaaga aad dhistay iyo sida aad ku dhistay iyo qarashaadka iyo wixii dhan aad kaga sheekayso wax fiican ma ah anigu geeygu waa burburay qofka xuneyd iska leeyahay waa hagaag qodobka shanaad awood iyo xoog ha u adeegsan qof tabar daran oo maskiin ah hadduu rabbi awood ku siiyey ilaaha awood iska leh haddii xil ama awood ilaahay ama wax uun man power uu ilaahay ku siiyey ama awood aad adigu leedahay ama awood dhaqaale ama awood jago aad hayso ama awood mucube ha ahaataba qof maskiin ah waayo awooddaada ama maalkaaga ha laga nabad galo wax fiican maaha inaad u adeegsato lix xorriyadaada ha ka hadlin adigoo la joogo qof maxbuus ah qof jeelka ku jira adduunyada laga qariyey haddii lagu soo booqato tiraado adduunku waa sidan baan u noonahay sidan wuxuu ahay intaan ka baxaa intaan ka waxaas waa wax aanan wanaagsanayn toddoba caruurtaada quruxdooda iyo qiimahooda ha ka hadlin adigoo la jooga qof aan ilmo dhalin qof ilaahay aan awlaad siinin haddii awlaadaada quruxdooda waxaan ku raahdaa farxad aad la qaadato waqti aad la qaadato kaga sheekayso ka hor imaado oo aad daris la tahay oo aad hortooda ku samaynaysid oo aad banaanka ula bixaysid oo aad si walba la yeelaysid wax fiican maaha waayo qofkaasi waxaa niyadiisa galaysaa baa niyadiisa galaysaa wax qurxoon kuuma aha nafsadaada ruuxdaada uma fiicna sideed hooyada iyo aabbaha oo kuu nool ha ku faanin adigoo la jooga qof agoon ah way dhacdaa qof maskiina agoon ah maanta ay hooyadiisa aabihiis garabka ka taagnaynin adigoo hooyada iyo aabbaha kuu joogaan cunayso cabayso xiranayso baranayso wax walba ay ku dhamaystiran yihiin ha ku faanin oo ha dhihin hooyadii aabaha ii joog
waayo iyagaba ifka ilaahay u joogaane waa laga wadan karaa. 9 dhar qaali ah in aad ku libisan tahay ha uga sheekayn qof aanan haysan wax ka badan labada uu xiran yahay. ma haysta bedel, labadaasaa ku waaga barya kuna dhaca ku caddaadeen, adiguna dhar qaaliya ee softi ah yaad wadataa. ha kaga sheekayn, ha istusin dadka, ka leex dadka, ha lagaa nabadgalo. waanada ugu dambaysa ee 10aad, guulaha aad gaartay ha ku faanin adigoo la jooga qof waqtigu ku adag yahay. guulaad soo gaartay, noloshaad ka soo baxday, waxbaa lagu soo baray, digriyaad heshay, PhD aad noqotay. ha kaga faanin qofna oo waqtiga qof ciilay ha uga faanin. inta ayaa kusoo gabagabaynaynaa qaybta xigta iyo 10ka soo socota hadduu ilaahay nafta nagu samo. isha ku haay, halkan waa Garadhiso Tube. fadlan haddii ay tahay markaadii kuugu horeysay, like, subscribe, share, intuba commentiga wana wada dhiirigelin. habeen wanaagsan. asalaamu calaykum.